nabadgelyo korkiina ahaato annagana sidoo kale qofkii salaanta naga qaada korkiisa nabadgelyo ahaato xitaa qofkii aanan naga qaadinna salaantu waa magaca Allah oo dadku gargaarkiisa u baahan yihiin nabadu waa mid aan ku barbaarnay taasoo nagu dhaxwarsoon gudaha waddankan oo aan noo waarin sidoo kale oo aan sii jiri doonin nabadgelyadu waa iska fiirinaynaa iyadoo boorsooyinka xiranaysa una sii baxaysa tartiib waxaana booskeeda soo degay isdhiibid isdabcid aanu islaamina ku jirin waxayna ilana tahay islaamnimadu awiyaalkii aanay waxba ka qusnayn ma ogtahay waxay nabaddu noogu tagtay ma ogtiin sababta ay mugdi noogu fududay haddii aan si fudud u sheego waxay tahay bulsho cabsanaysa waxayna ka baqanaysaa kala duwanaansho hadalkan aan ku dhahayo kuma qancin doontid dhammaantiin ama badankiin waan ogahay taasaasi ahaatee ma doonayo inaan noqdo sidii xoolaha oo kale waxaan ka soo horjeednaa inaan qiranina nahay bulsho ku hartay dunida bulsho mar walba sheeganaysa inay isbeddeldoon tahay waxaan nahay wasas la weyn oo isku haysataa inay tahay bulsho aqoon-yahan ah alla maxay tahay doqonnimadaasa inaad soo dhowayso dadka sida walba kaaga bulsho oo ay waxay awooddoodu tahay waxba kama jiraabana kala duwanaanta midabku wuuna dhibayaa kala duwanaanta muuqaalku wuuna dhibayaa kala duwanaanta fikirka wuuna dhibayaa kala duwanaanta xagga diinta wuuna dhibayaa xitaa midda labkay dhiddig ahaanshaa wuu una dhibayaa waxaynu nahay waxaanu ku daynaa inaan si bini'aadnimo ku kala duwanaanta dhan walba waxaan onnay run dilaah waxaan nahay bulsho maangaab ah waxaanu ku daydaynaa inaan isku qabsanaynaa khuraafaad been abuurka ah oo aan macno lahayn aanan didnayn inaan si qoto dheera wax u eegno cid ka badbaadday ma jirto shacabkii siyaasiyiinta dadka ka ah musaaharayntan iyo kuwa sheegtay inay yihiin lama taabtaan xitaa kuwa reer galbeedka u raacay diinna la'aana iyo kuwa raba in la soo celiyo khilaafka iyo islaamka iyo xuduudihiisa oo aan maanta u fiirsanno nafteenna si qoto dheer aan gudaha u galno ruuxdeenna kadibna aan eegno sida aan u kala duwan nahay anigana arrintan hortiida taagan midabkayga dintayda oogadayda kaalintayda iyo fikirkayga waa idin kala duwan yahay balse ma idinka baqaayo maxaa yeelay aniga idinka ayaan idinka mid ahay idinkana aniga ayay iga mid tihiin aan saamayno sugaan riyoon sidaan u gaarno aqoon dhalanteed ahayn si hore horkeenna u noqonno mid ka sareeya kala duwanaanshaha aan meel iska dhigno kala duwanaanshaha xagga dhaqanka sinjiga fikirka midabka oo aan xoogga saarno bini'aadanimada